السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا إلياس عبد القادر أبو بكر إلياس كولمية kusoo dhawaad channelkeena. Hadduu Allah idmo maanta waxaan ka hadli doonaa haddii aad waqti dheer siiso jacaylkaaga maxaa ku dhici kara noloshaada. Waxa run ah oo aan shaki ku jirin marka ay timaado xisaabaha ka dhaxeeya rag iyo dumarba ama labada qofood ee ku heshiiya in noloshu wadaagaan waliba muddo jiritaankoodana maalmo qorayahay oo halkaasi ay ka jirto khiyaano shakhsiyadeed oo qof kale ku lamaana. Waxa run ah in dumarku ay ka khiyaano badihiin raggana ay ka khiyaano badihiin dumarka daciifka ah oo aan waxba ogeyn balse kuwoodii xunxun ayaa alaaba u geysta jacaylka dhibaatooyin murugo naxdin leh. Haddaba waa fariin ku socota rag iyo dumarba qaasatan dhalinyarada xiliyadan dambe soo kacday ee xisaabaha ka dhaxeeya ee sida qaldan u adeegsanaya jacaylka micnihiisuna ka dhigay xumaato iyo nacayb hor leh. waayo qofta tiraado waan ku jeclahay way adagtahay in markiiba ay ku aaminto oo ay ku rumaysato sababtoo ah waxaa sanadahan dambe jacaylka labada qof ay ka dhaxeeya la raacsiiyay ficilo aan loo baahnayn oo niyad u ah dumarka sida been, khiyaano, ballanqaad been ah, in la qasbo gabdhaha iyo wixii la mid ah. Taasi ayaa sabab u ah in gabdhaha si dhaqso aan ku rumaysanin. Haddaba gabdhahaasi waatee ee aan durbadiiba qaadan soo bandhigashada jacaylka innagoo aan ku micnaynayno gabadhaasi inay tahay gabadha markii hore ka soo gaaray dhaawac iyo been muddo socotay balse ka tusaale qaadatay casharadii ay soo aragtay iyadoo ay dib u dhisayso nolosheeda oo markaani diyaar u ah guur xalaal ah oo aan waqti dheer ku qaadan ismarkaana ay ku lumin xisaabaha. waayo mararka qaar dhagaha waxaa ku dhacaya gabdho ku oranaya gabdho kale in haddaysan ninka ragga ay la socon muddo 3 sano ah aysan la aqal galayn oo haddii arrintaas aysan dhicin waxay moodaa in lagu caynayo balse taas waxaanu leenahay waa qaacido qaldan oo ay gabdhuhu ku kacayaan balse waxaanu leeyahay waxaa ku dhaqantaa midda ama midka alla ku soo hanuuniyo ee daacada rabbi wax ka taqaana ama wax ka yaqaana kuna wada fikira dhaqashada iyo wanaajinta qoyska. haddaba ha kulmin waqti dheer meel xikmad Allah subxaanahu wa ta'ala looga baahan yahay. dhalinyarada Soomaaliyeed rag iyo dumarba sanadkani markii xiriirkooda ay soo dhamaato markiiba ma waayaan lamaano kale maalinta xigta mid kale ayuu halkaasi ka sii wadayaa ama ay ka sii wadaysaa. waayo markii hore ayuu xiriirkaasi ku dhisnaa khiyaano dana gaar ah. haddaba ha sugin qof waqti ka luminaya oo been iyo casharo maskaxdaada ka weyn ku saaraya. ogsoonow waxaa si qaas ah ula hadlaya dumarka jacaylku meelaha la isla istaago ma ahan jacayl waa wax maalmo la iska doonayo. waayo shakhsiga ku doonaya meelaha kulma istaago wuxuu kula raadsadaa meelo wanaagsan sida gurigaaga inuu kugu yimaado intuu waalidkaaga iska qarinayo ninkaasi ma ahan qof wanaagsan. tusaale haddii aad la timaado dhaqan wanaagsan oo uu ka waayo wuxuu ka rabay barta taaganta ayuu kaaga dhaqaajinaya misna taleefankaaga ma qabanayo balse jacaylka dhabtahay waxa uu yimaadaa guurka kadib markaasna ayuu bilaabanayaa mas'uuliyadda iyo casharada jacaylka. qofka wax jecel ma yaqaano khiyaanadu waxay tahay weligiisna jacaylka dhabta ahi duruufuhu ma hor istaagaan. si kastoo ay ahaataba jacaylka dhabta ah oo nadiifka ah ma dhinto maqnaashuhuna ma dilo waddo xanibi kartana ma jirto booskiisana shay kale ma bedelo. marka aad go'aan kasta aad gaarayso jacaylku yuusuu kula noqon mid kula fudud. haddii aad ka heshay muuqaalkeena fadlan subscribe noo saar. mahadsanid.